halkani waa Somali Weyn Production qodobada ku daawan doontaan warkayagana waxa kamid ah madaxweynaha cusub ee wadanka Kenya ayaa soo bandhigay mowqifkiisa iyo go'aankiisa ku aadan xukunkii maxkamadda adduunka badda la isku haystay intii ugu badnaa ay ugu xukuntay dawladda federaalka Soomaaliya waxaana uu soo bandhigay go'aano lama filaan ah oo uu ku wajahayo arrinta badda isagoo sheegay wali inaysan ka tanaasulin baddaasi inay sheegtaan inay kala heshiyaan dawladda federaalka Soomaaliya waxaase la sugayaa go'aanka madaxtooyada Soomaaliya ay arrintaasi ka qaadan doonto madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu go'aan degdeg ah ka qaatay khilaafka u dhaxeeya taliyaha dhisa iyo taliyaha booliska ee dawladda federaalka Soomaaliya go'aankaas ayaana laga dareemay shir ammaanka magaalada caasimadda Muqdisho looga hadlayay oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu shir gudoomiyay waxa uuna si toos ah u qaatay go'aan degdeg ah iyadoo la filayo go'aamo kale inuu qaato la taliyaha amniga qaranka madaxweyne xasan sheekh maxamuud shacabka Soomaaliyeed ayuu u diray fariin ah inay bilaabayaan dagaalka dhan al-shabaab waxaana mar kale la taliyaha amniga qaranka madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku celiyay eray la mid ah mid uu bil ka hor sheegay walow kadib weerarro adag ay dhaceen madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobana waxa uu muuqdaa markan inuu yahay gablan siyaasadeed isla markaana uu leeyahay hal garab oo xitaa uu ku kaashado dhanka siyaasadda waxaana uu markan maciin biday xubno saameyn badan aan ku lahayn siyaasadda dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale dawlad goboleedka Jubbaland qodobadaas ayaad ku daawan doontaan warkayagii aan ku bilaabo madaxweynaha cusub ee wadanka Kenya William Ruto ayaa markii horeysay waxa uu soo bandhigay go'aankiisa ku aadan xukunkii maxkamadda adduunka ay u xukuntay dawladda federaalka Soomaaliya qaybaha ugu badan badda ay isku haysteen Kenya iyo Soomaaliya badeena oo Kenya si qalad ah ay ku sheegatay isla markaana sharci darro ay wax badan kalluumaysatada uga jilaabanayeen ayaa ugu dambeyn waxa guul ka gaartay dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo intii ugu badnayd badii ay sheeganaysay Kenya laga xukumay lana siiyay dhanka dawladda federaalka ee Soomaaliya isbeddelka maamul ee ka dhacay wadanka Kenya waxa la filayay waxaan inuu ka bedelo mowqifka dawladdii uu hogaaminayay Uhuru Muigai Kenyatta ayaana xilligaasi si cad u diiday in badda Soomaaliya loo xukumo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo xubno kale oo mucaarad ah ayaase xilligaasi waxay iska indhitirayeen diidida Uhuru Kenyatta waxayna si cad u sheegayeen inay garab taagan yihiin Kenya ayna u arkaan walaal iyo waday dawladda Soomaaliya ay leedahay hadda dhawaan waxa uu heshiis wada galay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo Uhuru Muigai Kenyatta waxaana heshiiskan aan lagu soo qaadin arrimaha badda iyo mowqifka Kenya dad badan oo Soomaaliyeed ayaa u arkay madaxweyne xasan sheekh maxamuud muhiim ay tahay in Uhuru uu kala hadlo mowqifkiisa ku aadan badda Soomaaliya si xilligaas ay iskaga kaashadaan dhanka ganacsiga oo qaadku ka mid yahay balse madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxyaabo aysan aad u jeclaysan shacabka Soomaaliyeed ayuu ku bedeshay arrinta qaadka si toos ah ayuuna u sheegay in qaadka la sii deynayo meeshana laga saarayo wax walba oo la xiriira caqabad uu qaadkaasi la kulmi jiray qaadkan waxa si toos ah go'aan uga qaatay madaxweyne xasan sheekh maxamuud isla markaana ma jirin cid wax laga weydiiyo oo kamid ah sharci dejinta aqalka hoose iyo kansaratoona taasina waxay ka dhigan tahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud in dana gaar ah uu ka dhaxarkay sii deynta qaadkan sidoo kale Uhuru Kenyatta ayaa ka dhaxarkay dana la xiriira in Raila Odinga uu cod ka heli karo bulshada degan gobolkaasi walow William Ruto uu kaga awood roonaaday William Ruto waxa hadda uu ka hadlay mowqifkiisa ku aadan badda Soomaaliya ee loo xukumay dawladda dhexe ee dalka isla markaana waxa uu sheegay dawladdiisu in mar kale ay isku dayi doonto in wada hadal ay la gasho dawladda uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha wadanka Kenya William Ruto waxa uu sheegay in rajo weyn uu ka qabo madaxweyne xasan sheekh maxamuud in wada hadallada uu la bilaabi doono isla markaana ay go'aan rasmi ah wada gaari doonaan isaga oo si weyn rajo uga muujiyay in madaxweynuhu hadda uu diyaar u yahay wax walba oo la xiriira wada hadal ula galo dawladaha ay sayaan dawladda federaalka ee Soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa ay hadda ka wada hadli doonaan William Ruto arrimaha qaadka iyo sidoo kale arrimaha badda sida ay shaacisay madaxtooyada wadanka Kenya madaxtooyada Soomaaliya ayaa dhankeeda la filayaa in jawaab cad ay ka bixiso warkan ka soo yeeray madaxtooyada wadanka Kenya isla markaana Kenya State House waxa uu sheegay in villa Soomaaliya ay si weyn u soo dhaweynayaan ayna ka wada hadli doonaan arrimo kala duwan oo la xiriira xiriirka labada wadan ganacsiga dhankiisa iyo sidoo kale dhanka badda Kenya ganacsatadeedu walow niyad jab weyn ay ka qabaan xukunkan haddana wali kama aysan harin in xeebahaasi ay ka jilaabtaan
mana jirto dowlad Soomaaliyeed oo hadda awood u leh in si toos ah ay ugu hor istaagto ganacsatadaasi jilaabashada dowladda federaalka Soomaaliya ee hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana markan u muuqata ahmiyad weyn inaysan siineen arrimaha badda si la mid ah dowladii ka horeysay oo iyadu cir iyo dhulba u aaday sidii loo heli lahaa go'aan rasmi ah marka dambana Kenya looga saari lahaa dhanka badda ee xadka Soomaaliya iyo Kenya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna go'aan degdeg ah ayuu ka qaatay khilaafka u dhaxeeya taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waa ninka lagu magacaabo Mahad Maxamed Salaad iyo sidoo kale taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya General Xijaar ayaa waxay isku dhaceen Mahad Salaad kadib markii lagu eedeeyay Mahad Salaad in si aan wanaagsaneyn oo la dhaqmay ciidamada booliska gaarka u toobaran ee loo yaqaan Haramcad waxaana tani ay ka careysiisay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya General Xijaar oo Haramcadku ay hoos tagayaan tan iyo markaasina waxaa soo ifbaxayay khilaaf aayira oo u dhaxeeyay labadaasi mas'uul saacadihii ugu dambeeyay ayaa sala sheegay khilaafkoodu in cirka isku shareeray xubnahana waxa istaagay wax walba oo wada shaqeyna oo ay lahaayeen warkan waxa loo gudbiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud golaha wasiirada xubno ka tirsan ayaana madaxweynaha ka dalbaday in go'aan degdeg ah uu ka qaato labadan mas'uul oo khilaafku xilligan u dhaxeeyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud go'aankiisa si toos ah ayuu u qaatay waxaana laga dareemay kulankii ugu dambeeyay amniga magaalada caasimadda ee Muqdisho looga hadlayay waxaana lagu soo casuumin taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Mahad Salaad iyo sidoo kale taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya halka taliyaha ciidanka xoogga dalka isagoo jira magaalada Beledweyne uu dhanka qadka kaga qayb galay labadan mas'uulna iyagoo ku sugan magaalada Muqdisho ayaan lagu casuumin inay ka qayb galaan kulankaasi xogo hordhaca waxay tibaaxayaan in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud go'aamo kale uu sii qaadan karo waxaana laga yaabaa in labadaba xilka qaadis uu ku sameeyo amaba golaha wasiirada uu horgeeyo si ay xilka qaadis ugu sameeyaan loona magacaabo xubno kale oo cusub la taliyaha amniga qaranka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu kamid ahaa xubnaha ka qayb galay kulankan waxa uu shacabka Soomaaliyeed u diray fariin ah inay bilaabi doonaan guluf iyo duulaanka dhana dagaalamayaasha al-shabaab xasan macalin waxa uu ka codsaday dadka Soomaaliyeed inay kala shaqeeyaan sidii horumar looga sameyn lahaa dhanka ammaanka isla markaana ay u diyaar garoobaan howlgalka dhana al-shabaab oo ka bilaabanaya gobolada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madoobena markan waxa uu muuqdaa in meeshii ugu hooseysay ee siyaasadda iyo garab istaaga u marayo Axmed Madoobe waxa uu waayay dhammaan saaxiibadiisa siyaasadda waxa ugu dambeeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe siyaasiyiin ay kamid yihiin kuwa gobolka Gedo oo aad ay isugu dhawaayeen Axmed Madoobe oo kamid yahay senator Fartaag iyo sidoo kale Cabdirashiid Janan ayaa magaalada Muqdisho waxay ka sheegeen marnaba inaysan aqbali doonin wada shaqeyn rasmi ah aysan la yeelin doonin madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland oo muddo kororsi loo sameeyay muddo hal sano ah ayaa hogaamintiisa lagu daray dhinacyadan ayaana sheegay inaysan aqbali doonin wax walba oo la xiriira Axmed Madoobe isku dayadiisa sidoo kale mas'uuliyiinta gobolka Gedo ayaa iyaguna iska diiday dhankaas iyo Puntland oo garbistaag uu ka dalbaday ayaa uusan ka helin garbistaagii u baahnaa ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre si toos ah ayuu u cilaamiyay dagaalka uu la galay Axmed Madoobe dowladda federaalka Soomaaliya ayaa iyana u muuqatay in il gaar ah ay ku eegayso madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland ayna doonayso go'aan gaar ah inay ka qaadato halka doorashadii ugu dambeysay ee ka dhacday wadanka Kenya loogana guuleystay Raila Odinga iyo Uhuru Kenyatta isku garab William Ruto oo ku soo baxay ay ku ahayd dhabar jab weyn iyo maalmihii siyaasadda Axmed Madoobe oo soo ilaaday waxaana hadda Axmed Madoobe uu garab weydiisanayaa dhinacyo aan saameyn ku lahayn siyaasadda dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale tan dowlad goboleedka Jubbaland xubnoodayaal dhaqana ayuuna ka dalbanayaa in warbaahinta ay ka hadlaan taageerana madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland waxaase la isweydiinayaa xubnahaasi iyo siyaasad ahaan waxay ka tari karaan warka Soomaali Weyn Production waa intaas nabadgelyo